متانو هذا dadka soo dhaweyn jiray maxasado iga carray waan galay bam Instagram live bam soo dhawaada dadkii soo dhaweey adaa dadka soo dhaweyn jiray soo dhawaad Maria welcome soo dhawaad Faiza Bella adii hal mar 200 وأنا السلام خيار شرفت له شرعية ما كنت بجينا شرعية إنستغرام لايف جينا أن أفريقيا كدب أن كوبيتون كابينمو أن حبين كستا سكن قلنا كي مد سوق لا أنا كنت في وقتها شرعية دي إنه حوي أنا كنت قف كستوا سوق بنا لكن حوي قف مقد مال مقد جنازته والله مش هيك لينو تو شرعية كله وحلا يسكت ده إلا تشوف صدق ده سواي مرمر وحنا كسارة كومنت كا أن تري قف كان كهلنا أما مجاله هراء أنا مقال أو نجلا صعنسين سمعنا ونوع يدعادي هو traditional دعادي نبلو إلى مجرتني قديقة آمين إلى رماد قديقة آمين صقر آمين شرعية واقع شرعية ورقة سكي سودو مسخاوي سودو مانطق سودو أسماء ورهيا والله سو ولا قلي ما أنت مرتع على سبينها هبيك استوحى سكوت هنا لبا أصحابته هنا إني سو بندقو شلي وحنقوم هاد علينا هورتا مروان يرى وحنقوم هاد علينا ساقالينا ساقال وحنقوم هاد علينا ليل باليل أو شل مرتينو ليل باليل أم big fan بنونا هاي لما تود عاونا مرتوح عني أنا the one and only منى عمر حسن أبا صالح سنة تردي سنة هروينكا يو سيدي لان وبحكويال مربع ليغتا هستو وجه علي هاي صفوان الله هستو حبلها مرقورو صفوان مدخلو صفوان قالا بحاول بدشي حبرها مدقوران اليوكيلا حبرها alright waxaynu soo qabanaynaa hota yosh the one and only Umar Hassan live and direct from Muqdisho caday reer Muqdisho inta nagu jirto dhan hota waan in wala salaamnay reer Madiino aniguna waxaan salaamay warta nabadda abtay waay ababala way soo gashay السلام عليكم لوفتي بهذا لوفتي تعالكي صابرة عليكم السلام ماكو سلام ني منى عمر حسن كسو دو the one and only متان سلام ولانكي ماكو سلام ولانكي خبر يرسيتها في عنتها خير والله فعلا الحمد لله سيتها مركو مسؤولين لهadlayo متان عد كلو يا شعب اوتوماتيك بدل ماده ونيكي هذا لها حبرها وف بلو ميك اب تو سو galay سمسم بلو ميك اب سو قبنيا ورياسة هيقب أحسن سمسم هيقب أحسن السلام عليكم سنتر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكو سلام هذه يا أصحابتي هذا لما أنت برنامج كداونا يسا إيه أنت داون دون تبع ما شاء الله هو طبعا قبل بنا رمضان مبارك رمضان كريم إلهي السنة كسنة جيساني بو غارسيا بش يبرواق إن شاء الله آمين مدام أي سؤاله أي نوبلا مضونا مردو وان كومنت كوان حنا لكن لوفت حاجة كصوبضية ولو حكا بقانا إن فريزن ونقضو أو فريزن منا مقدشة نوغورن هورتا يو كوفيد 19 نقد بجي يا حالة ذا يا بندو ذا وطا مقالة نقد بجي والله هرتا waxaan magaalada ka sheegay garan maayo sidii bandooda loo sheegay ma bixin waxaan sidii سنة تردي على قبتها لقورن دونا يسلقي الجوجي بس ولا حلوة ما شاء الله stay safe marka guriga ku jirta xaafada lagu joogo qofna naga shaqada qaba oo dhamaan ba marka waa golaha sare iyo golaha hooseba kullu golaha wasiirada golaha intii marka shaqada wasaaradda caafimaadka iyo warfaafinta iyo wixii shaqo kale mooyaane hawsha socota inteeda kale wali waxa la yiri daaqalka sare oo dad waaweyn bay isaga badan oo sokor iyo dhiikar iyo سفيان كوان محل الكلية اللي تشوف وانو كاهينا انتاسنا سؤالهayga ba bilaabanayo hoto munay shanteedii su'aalood maadaama matano hal dhibu wadaa isagu dhibtu ii qaabilsay عاش كل انا قابلسنا senator ما laba su'aalood mu ka dhigto kuleelka isagu halkii waaye اوكي واي su'aasheedu ugu horeysa munay dadka inta badan waxay kugu barteen saxaafadda si fiican marka waxaan ka weydiin lahaa goorma saxaafadnimada soo gashay oo
aad bilowday inaad wariye aad noqotid TV-ga SNTV-ga waxaan bilaabay 2000kii markii shirkii carta uu yimi laga yimi ee lagu soo noqday magaalada muqdisho ayaan labadii ku waxaan ka bilaabay idaacad la oran jiray Horn Afrique iyo waliba television ay lahayd oo haddana mar kale bilowday idaacad labaad oo la yiraahdo Capital Voice labada idaacadood laakiin Horn Afrique baan ka bilaabay 2000kii weligaa saxaafadda ma jeclayd iyo waraysiga hooyaday markaan yaraynayna waraysanayso hooyaday waxay ahayd macallimad wax baratay markay waraysanayso 3 wiil waxay dhashay aniga iyo 2 wiil baan dhashay ay tiraahdo hooyo maxaad wiilkayga weyn maxaad noqonaysaa isagu wuxuu oran jiray waxaan noqonayaa nin wax bartaa oo ganacsada ah kanaga yarna wuxuu ahaa samafalo iska jeclaa weligiiba anigu dadka waaweyn baan caawinaya buu oran jiray masha Allah aniguna waxaan aad u jeclaa inaan noqdo looyarad iyo inaan noqdo saxafiyad laakiin saxaafadii baan noqday looyarkiina meel dhexweegaga qabyoobay jacaylkii qabyoobay saaxiibkii macnaheestiisa yo abwaan jelani waan arkay inuu soo galay abwaan jelani waan ku sanaan ninkaan su-aasheeda labaad aan rabay markaa inaan ku weydiiyo imise sana xamar deganeed horta iyo magaaladee may waa soo bilaabay xaggaa ku dhalatay waxaan ku dhashay gobolkii ragga magaalada burco togdheer reer burco stand up waayahay ninka reer burco ku jirta dhammaantoodna waan wada salaamaya way kaa wala qaadeen anaa wala hadlaya dhammaantooda goormaa marka xamar goormaa u guurtay marka ma shaqa darteed baa u guurtay ma fasax ma jacayl maya xamar faamilkayga deganaa inta badan waxaa isoo korisay inta badan oo la noolaa habarartii hooyada la dhalatay oo dhakhtarada oo xamar deganayd marka inta badan xamar baanu joogi jirnay iyadaan la joognay markay qabti dhacday oo dagaaladii iday dhaceen xamar baana lagu soo celiyay anagoo waqooyi joogna anagoo yarba xamarna la keenay sidii ugamaan bixinba way waana imisa saneen ka hadlaynaa hadda total marka la isku daro waa imisa sanaa total deganeed xamar markaa waxaan deganay 27 sannadood ban si rasmi u deganahay oo meel ka tegin way waxaan hadalladaadan ka dhadhamay waxaad tiri gobolada waqooyiga ma gobolada waqooyiga mise waa Somaliland may anu Somaliland baan ka soo jeedaa Somaliland oo 60giina taqaano oo jamhuuriyad jirtay Somaliland la yiraahdo ahayd haddana Somaliland oo dalka leh madaxweynaha leh one man one vote isku doorta kala dambeynta leh nabaddu ka jirta ayaan ka soo jeedaa gaar ahaan waxaan ka soo jeedaa burco iyo sheekh ma sha Allah su'aasheedii saddexaad goorma si from saxaafi iyo wariyo oo hobbigaaga ahaa jeclaad goorma siyaasaddiina ku soo biirtay qofku markuu saxafi yahay inta badan waxaad arkaysaa wuxuu ku dhex jirayaa siyaasadda programmadeedana inta badan intii hore waxaan dhallinyaranimaan ku galay anigoo yar marka maaweelooyinkaan ahaan jiray entertainmentiga sida fankoo kalan aad u xiriirin jiray markii dambe oon xoogaa yaro weynaadayna waxaan galay qaybta siyaasadda waraysiyada iyo interviewiyadii waxaasaan samayn jiray oo haddaba youtube-ka uu ku jira interviewyadeydii marka sidaan ugu jiray siyaasaddii oon interviewyadii u qaadayay waxay igu dhalatay adiga ku dhado qofkan maalmaha kamida waxaan wareysanayay markay igu dhalatay marwada madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud marwadiisa saare cumar xasan ayaan interview ka qaadayay marka intii ay isdiyaarinaysay waxaan ka fikiray ma samayn kartaa in sida adiga lagu wareysto adigoo mas-uula waana ku guuleysatay automatically markiiba maskaxdeedu way qaadatay iyada qudheedan markaa kala dashadaan ku yidhi waxaan doonayaa inaan siyaasadda ka mid noqdo iyada marka kugu dhiirigelisay marka aad bay garab weyn iga siisay aad bay igu soo dhaweysay aad bay iyo agaasimaha telefishinka qaranka agaasima alcadaala waa ninka kale isaguna gacan weyn ka geystay inaan siyaasadda ka qayb noqdo iyo wasiirkaygii mustafa dhuxulow isagana ilaahay raalliha ka noqdo saddexda qof baa siyaasadeeda iyo hooyaday macaan oo markasta iyaduna igu dhiirigelin jirtay horumarkaygan halkan ka salaamayo ayaa saddexdaas afartaa qof baa siyaasadda inaan tago ka dambeysay kursigaa fadhiisto ka dambeysay maasha Allah su-aasha afraadna senator aan rabay inaan ku weydiiyano samafalaa tahay dadka inta badan ma oga ma jeclana inay muna ay sheegto laakiin
dad badan baa ka daawaday kullaba dee snapchatkayga inta qof ay caawisay ciidaha hadday noqoto rabadaanta hadday noqoto ajar hotaa kaas iyo munay waxaan anigu personally waan ku ogay wax badan baana dadku aanay ogeen oo samafalo aana jecleen in lasoo bandhigo ama igu sawir aanay ahaan horta ilaahay taas ka abaalmariyo ajarna kaa siiyo su-aasha markaa taa ku saabsaneed waxa weeye fanaaniin badan oo dhanka fanaaniinta horta inaan kuu sheegay bishan waxaan afursiyey 500 oo qoys ما شاء الله لكن social media sooma gelin mana saasin waxaana igala qayb qaatay oo gacan igu siiyay hablaan asxaabnahay oo Mareykanka degan gabdho badan adigu qaraabadayda iyo anigu 500 qoysas kale aniguna aan qaatay marka adigu 500 qoys baan sanadkan aanu afursiinay laakiin waxaan doonayaa xooga saarno inaanu siino 500 oo caruur ah ciidooda inaan bixino dharkooda ciido qof walba qoy gurigiisa in loogu geeyo ما شاء الله ما شاء الله حقنا waxaan arkaa gudoomiye saaxiibada qaaliga Saynab xabsada soo gashay الله ولا شيء Saynab salaam ya Saynab Saynab عندي وسلامنay Saynabna waniga ma jirto iyadana waniga soo qabtay maalin weetole ما baan ogeyn meeshan way shidan tahay meeshan adiga soo qayb gelisaan bay mar hore waxaanu aniga iyo mataanba waxaan ku fikirnay rabadaanta dee waatan oo covid-19 oo meel kasta xiran ajahanabigu hadda fajo ama pdd oo kale dee dadkooda entertainment bay siiyaan saas daraaddeed baan u kolaabay aan ka bilownay badda taa rabe marka aan rabetii samafalka waxaan ogahay fanaaniin badan oo jooga xamar oo adigii geeyey ay soo tusay cabdi tahliil ilaahay caafimaad sareecanaha siiyo dad badan oo aad ka warhaysad adigu cumar shooli weyna kii ogeen hadda wallahi sugeerow adaa warka wadaagtida kaama buubin bay yidhahdaan islaamuhu yahay fanaaniintu aad bay u dhibaataysan yihiin fanaaniintu intii la manaafacaadsaday shaanida qasacada cabitaanka markaynu ka cabnay ku jiro soco iyo cabitaankii hadda qasacada markuu soo kaco ku jiro oo filinjeerka ama talaagada laga soo saaro qabooyay qof walba uu jecel yahay uu cabaa laakiin markuu cabitaankaasi ka dhamaado jidka lagu tuura baabuur baa dardara dameerka dardara dadkaasi laaga wax kasta waa la nacay marka fanaaniinta Cumar Shooli hadda 2 sanadood buu Muqdisho ku joogay oo xanuunsaday aad buu tabcaanay cid ka warhaysay male cid soo eegtay male qof walba wuxuu ku war helay markii telefishinka intuu dhakhtarka tagay uu soo waray tugu qof walba oo Shooliba magaaladu joogay hadda sidan oo kale ilaahay caafimaad sareecanaha iyo Cabdikariin Faarax Qaar Jiir Cabdikariin Jiir ninkii laxankii baladweyne inuu leeyahay baan u malaynayaa sidoo ogtay isku rogrog wax laxankaasi iyo heestaasi isu rogrogto ninkii sameeyay aad buu xanuunsanayaa inkastoo uu haysto ubad fiican oo daryeelay oo nin maanta baahan aanu ahayn oo leenahay alla caawiyo aanu ahayn dadka ku faatax u baahan yahay haddana waxa la doonayaa dawladii gaar ahaan wasaaradda warfaafintu iyada qaabilsan fanaaniinta hadda Saynab Xaaji Cali Baxsan خير الله سي وزيرة خديجة قعنت كويسة أو تركي جيسة يا أنت وحول بوصة ما يصير ديدي بميدك ونقطعي صح مركب فنانين كي صوماليات ولا ضيعي واللي بقى وحن قاعد صار يا مادام ضلكوا بالبرسية هاي فنانين تدلني رضا فهسها فنانين تي هراء قاعدة كو قرابة تجا مسرحية إثلت تاجا ورانا يحسوستي هبل ورعبد تهليل ورسمي حسوستي سي هرنا هذا وادو تريرجع حسوست عبد أداد حسوسني يسد وين أتكور هاي ساعتي ما أنت هبيك تشوس من سطلقة يا بنا تصدق حسود عبد التهليل لا يتقاطع لح كنت بنكون إن قالت على جيابا بقول دولار حتى وجا مقودي وأنا وأحلى جح الشودوية يعني دولة الصومالية أنا وحلايا هاي هرتوي قاتان عبد التهليل هذا مشاهر بوقاتها سين حاجة على المشاهر بقاتها لكن مشاهر كما هو وقف كفين كريو وقف كده وكل نولان كريو وارن إنه فنانين تسكور هيسو وانا أنا أصحابتي فنانين ما أحد ليا مد وجوابي تا وحوي تا ويسكت ديان ما أنتوا حجرينا كي عبديرة هرجيسك وحنوسني almost $20,000 أي فنانين تو إسكا أرورسي صاحبك عبد فتاح هو ينو وصاق على عبد فتاح مركب منور كو وصاق على وبس فرنسي ما يمركا وتوتي لا أكثر بيسميستين هذا كان حق الفنانين تهرجيسة واتساب جروب بيسميستين نين والبا حتى ما هاي أنت سبحين كره نين والبا عدد بالغ الحكومة اللي أنت سبحين إنسان ولا تنمذا يسكرب سينتون واسبها ما أنت مركو مداليه هو بلده وبري لا يدي جيريدي سون بالغو ورهلاي
waxa inaynu xishoonno weeyaan waa ceeb bay nagu dhacday hadda maantana cabdikariin jiil sidaas oo kale noqonaysaa maalinta qof ku dhinto lacag baynu la soo yaacnaa laakiin intuu buko uu sariir jiifo wuxuu ku caafimaadaya araggeena hadda bisi subeer maalintaad u tagtay binti cumar gacal gurigeeda ugu tagtay yacni iyada farxad iyo adiga nasteexo indho farxad ka dhinayd ma jirin idinkoo $1,000,000 siiba iyada uga dhignay in laga warhayo waa inaan markaa su'aalaan ku weydiiyaa muna maadaama aad senatarad aad tahay oo dowladda Soomaaliya maanta ka tirsan tahay golaha sare aad ku jirtado waana golaha hoose aana ku jirin maxaa adigu ma ka hadashay on stage yani gudaha marka idinku fashiraysaan golaha sare ma ka hadashay topican oo ma tiri war meeyo fanaaniinteena anigu waxaan ahay gudoomiyaha warfaafinta dhaqanka iyo suugaanta ee golaha aqalka sare gudoomiye ka ah run markaan kuu sheegay anaga culayskii kala naga batay aqalka sare wuu cusub yahay sharciyo badan baana lagu soo daayay iminka 3 sanadood aan shaqaynaynay ansixinta sharciyada nagu badnaa laakiin anigu personal waxaan saaxiib la ahay fanaaniinta 17 sanadood iminka 11 sanadood fanaaniin baan la shaqaynayay barnaamijyada fankan qaban jiray ma jirto inta la soo fadhiistay sanatarra intay fadhiistaan oranayaan cabdikariin jiil baa xanuunsanaya hebel qof walba sidii isagu friend u leeyahay ayuu leeyahay saas daraadeed baa adigu gooni ugu taqaansan way su'aashaydii ugu dambeysay waxa iga horeeya walaalka wata su'aashii adkeed soo daa sanatarada waa ku salaamarta waa ka qaaday walaalkay maasha Allah waxaan ku weydiinayaa waxyaalihii kugu dhib badnaayeen oo la kulantay xamar انت سنترت هاد انت سنترت حلك انت هايزي عمر انت جوجني ما انا كفرحنا بديبهم بابا هي حتى دبكيغا كو شيغ waxa oranaysa waa diman weyde ما شاء الله wax yar loogu taataabo walaal waxa igu dib baday markii warqad aniga ka shaqeynay hoon Afrika warqad maxkamadaha shabaab ay soo sameeyeen ay xukumeen ay ku lahayn iyada iyo familkeedaba waa dil hal qabto meeshii lagu arko iyada hadii la waayno familkeeda hal la dilo oo anigana hooyadii iyo familkeygii iyo dadkii iyo carruurtii wixii ay xamari wada joogaan oo warqadii markaan arkay adduunka iyo dhan kugu yaraanayo barka war adiga lagu raacayo lagu dilaya wala adduunka kugu soo yaraanayo meelaad ka tagaysay male halkaad u dhalatay aad ka shaqeynaysay baana joogtaa صح waxay iga sii dareed markaan anagoo joognaa tiyaatarka qaranka xaflad ay leedahay SNTV aanu dabaaldegayno xafladii farxadii noo socoto gabadh agtayda fadhiday is qarxisay ee dadkii imika cabitaanka isla cabayna aanu meydkoodii gurnay what ha and yes what iyo qaar kale badan and senator su'aashii ugu dambeysay rabay inaan kugu soo xidho caawa and doorashadu way dhacaysaa mar dhow shanteeda su'aaloodna mid kamida always anugu de asxaabta waan hoos dhigaa kuwaas mid codka gacanta ku haysaa mobilka kuma maqalno kor u qaad ha haddii ay hadda hooyadu ku jiro isaga caawinaya ugu jira su'aashii ugu dambeysay rabo senator inaan kusoo gabagabay waxa weeye doorashadu way soo dhowdaysay ognahay bade markii COVID-19 kan uu dhamaado su'aasheeda ku soo xidhay haddii farmaajo iyo khayre hadday labadu ninba isu soo sharaxaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta yaa taageeraysa labadooda haddii isu soo sharaxaan waxaan taageerayaa marka ka dhex arko siyaasadda qofkii Somaliland gobolada aan ka soo jeedo qadiyadooda aan u fadhiyo kursiga aan matalayo oo aan ahay hormuudka in la walaaloobo aan ka dhex arko qadiyadda Somaliland gacanta ku haya ما كو قنعنيتها كومينو قنعين ها سياسته إلا مروة صحوفي صحافة ما سياسته فيري سياسته وادن سياسته وادن ها أنا كرسي بنفرديا وحن مثلا سوماليلاند هدي أو سوماليلاند أنا إسلا هذا فرماتش سوماليلاند وما فيعنا خيرها وفيعن خيرها راعي دينا خيرها سوماليلاند وما فيعنا وإنا قبل لدى أن مثلو دنتودا أن كده حركة قفك أن راعي because أنا شاقة مدوني واحد دوني يا قضية haddaan san u jawaabo haddaan san kugu dhigana marka labada nin keebaa isleedahay marka hadiiba isma dhiibay adu isdhiibtay keebaa u dhow marka anoo tixgelinaya hadalkii aad tiri kii qadiyada kursigan matalo u fiican wali siyaasadda wali ma afartoodii sano bay dhammaan solution-ku wuxuu imanayaa gabagabada u dambaysa waxaan oranayaa markii intaan wada shaqaynaynay 4 sanadood waxa uu fiicnaa hebel
laakiin weli shaqadii baa socota waxaan rabaa 770 qof ee igu jira inaad dhammaantiin ballo u soo wada qortaan senator Muna Cumar Xasan oo waqti qaaliya nala qaadatay Muna aad ya aad baanu kaaga mahad celinay aniga iyo Mataan iyo Soomaali weyn oo dhammaadeen يا ولا بتسمع ولا ما يستطيع ولا بس وما سنتي واجي سلام يا دمانتي لديك يا اصحابتك كلك ku jirta live ka Muna Cumar Xasan Instagram keeda original ku waa ka korka bidixda senatarada sharaf iyo karaamo inoo ahayd inaan soo booqatay thank you way ka badan karweyn one thing senatarada midka ma sha Allah politics marka su'aal weeshiisid su'aal kale kugu soo jawaab ma aragtay ha anna waxaan isla ila shantii su'aalood waa tan asxaabtii oo dhan ka wada qaada mid uu hoos galibaan hadda waxaan rabay in mid uu tiraahdo ama khayr ama farxad waa way khalkhalisay question big up to Muna Cumar Xasan we love you Muna way and guest ka labada caawaynu haynaa hablaha de hestu waa hablaha mid quruus faan ka hela habraha waxaynu soo gelinaynaa oo aanu soo qabanaynaa guestkeyga caawa Somali superstar Safwan Hilaac Halaac wayna taas weydiinaa dadku qaar waxay ugu yeedhaan Halaac mis Hilaac waa inaan warheedha heestaydii waa dhimatay aad bardii salaamay subeer iyo ninka odayga Mataan oo salaam yaabti rock salaam adiga Mataan waa ninkan soo wala kornay markaan Sweden nimi laba sano ku weynahay waa radio Tabori sanada waa soo digay iskuulka dib loo adu laba nin oo say walaahi meesha isku helay waan idin salaam laba helbad wariya Mataan kantay radio Tabori way isaguna ha Ingiriis ku deganaa laakiin oo inta hore dhammaan Instagram waxaan rabaa inaad dhammaantiinba ila soo dhaweysaan Safwan Halaac the one and only Safwan walaalo iska dhawaay walaalo aad baan kaaga mahad celiyay walaalo inaan markaan text message ku soo diray caawa thank you walaalo caawa guest may noqonaysaa thank you walaalo inta ay ka badan ba waad u qalantaa subeer walaalkay iga weyn aad baan ku tixgeliyaa thank you walaalo waxaan aad baan u salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku jirta Instagram-kaaga caawin aad baan u salaamayaa barnaamijka Suudu Socdi waan la socday waraysiga qaabka uu qaadayay waan la socday su'aalaha iga khafiifiya iga khafiifiya waan heshiinayo su'aasha mid baan siyaada isaga kale Safwana waxaan rabaa inaan su'aasha ugu horeeya aan ka bilaabo waxa weeye xafadee baa ku dhalatay iyo magacaaga saddexan walaal subeer Safwan Halaac Safwan Halaac magac iyo Halaac suu ku baxay raganimo walaal horta magacaygu waa Safwan Xasan aabahay baa Halaac la oran jiray Allah yarxamo aabahay wuxuu dhintay 29kii 29kii uu dhintay Halaacna isaga la oran jiray magacan marka aniga ina Halaac laakiin anigu Safwan Halaac mid ayay noqotay ha marka waxaan ku dhashay Berbera xaafadda Hargeysa ku soo koray laakiin way xaafadda ma Hargeysa ku soo kortay حواله reer xawaadle dhammaantiiba xagga su'aasha labaad waxa weeye anigu de maadaama private now ku aqaano ma sha Allah fanaaniinteennii hore laxamadoodii waa haysaa kii sameeyey muusiga qofkii tumay midhihii oo waxaan ogaa fanaaniin badan oo WhatsApp-ka midha maca ka caawisay ma waxa weligeed aad jecleed baa yani inaad taariikhdii fankeena suugaanta aad baratid maxaa kugu wacan inaad maanta fanaan kasta aad la tirtantid taariikhdii fanka waa haysaa Safwan dabcan walaalo horta waxaan waa iska waa u dhalasho aan waxaan oran karaa in qofku intuu yar yahay horta aabana waqtigu dhalinyarta ha sideedan oo kale wuxuu ahaa Allah salaam ahmed ragii fanka Soomaaliyeed aasaasay buu ahaa oo wuxuu ku soo kordhiyay aabo codka la yiraahdo raaxeeyay isaga ku soo kordhiyay fanka marka kulli waxaan u arkaa inuu qaab hidda oo kale anigana ii galay oo aan hidaysanayo adigu aabahay iyo maaragtay kartay oo ku soo gurigiina of course dabcan ha fanaanka ama taageertido
asoorin jirtay intana fanaan noqon kaasoo kala raba inaan noqdo ama dhanka stage-ka ha noqoto ama dhanka codka ha noqoto ama fanaan miyuu jiray aad ku dayan jirtay ama role model ahaa walaal haa uu jiray subeero waxaan aad u jeclaa allah yarxamar raxiimiin cumar dhuula cali cumar dhuula cali baan aad u jeclaa fankiisa wallahi wayna yartay subeero hees cumar dhuula qaado oonan garanayn waayo ilaa markaan yaraa ilaa maanta waan dhegeysan jiray waan dhegeystaa heesaha cumar dhuula aad baan u jeclahay dhammaan hodan iyo waan isnaqaanaa aad baan u salaamayaa carruurtiisii cumar dhuula allah yarxamar raxiimiin waa bil rabadaan ilaahay naxariista janno ka waraabiyo amiin amiin ka cumar dhuulaan walaal su-aashaydii saddexaad hablaha inan haddii aad isguursanaysaan ama aad shukaansanaysid maxaa ka eegaysaa qaar ba waxay yidhahdaan waxaan ka eegaa anu indhaheeda waxaan ka eegaa afka dibnaheeda dabadeeda adigu maxaad adigu saddex wax ilan intaasoo hable kunka qof aynuugu jiraa barigu waa hable waa run maxaa ka eegi lahayd inan quruxdeeda soo maha ama dabeecado saddex wax haddii aan ku aado safano dabeecad horta subeero qof dabeecad wanaagsan qof neceba ma jiro wata koobaad qof dabeecad wanaagsan qof neceba ma jiro qofka hadduu dabeecad wanaagsan yahay qof kasta wuu jeclaanaya laakiin inan dabeecadda halkaa inoo qurux hadday noqoto way inantu waa inay san dheer yeelataa oo indho waaweyn ay yeelataa ya oo waxaan ka hayaa kow inantu waa inay san dheer ahaataa oo indho waaweyn maasha allah oo aanay gaabnayn aanay dheerayn dhexdhexaad iska tahay medium ha medium de jirkeeduna waa jiri wanaagsan iska noqdaa yaanay buurnaan yaanay dhubnaanna nin kastaana intaasu jeceli intaasu jeceli waa inantu waa inan san dheer waan ka haynaa aanay dheeraan aanay gaabnaan iyo indho waanu ka hayna way waa maqlasaa ladies waa inaad ku raaciyataa marka ma single baa tahay mise relationship baa ku jirtaa se waaye waa su-aal adag taasi suuqan caadiga xidhasaaye way maadaama areer sweden tahay may wallahi may maka single baanahay relationshipna malihi inaana lama sheekaysto umana soo jeeda hadda waktigan relationship iyo future way waya dhanka kubadda tiimkeebaad taageertaa ama aad xiiseysaa inaad daawatid markay ciyaarayaan wax kubad la dhaafto maba daawadaba totally wax sportisa haddaan saa ku weydiin maba daawadaba wallahi ma sports oo dhan sports oo dhan free tiidkaaga ama free timekaaga maxaad jeceshaa inaad samaysid waxaan iska daawadaa filimada waxaan aflaantan jecelay filimada actionka ee maraykanka iyo filimada hindigaaba waan daawadaa weliba af soomaaliga oo yacko ku jiro weliba yacko halkaa hadduu iga maqlay aad baan salaamaya oo mar labaad aan salaamo oo ka salaamay weliba meel yacko film uu ku jirona daawan u fiiriyey yacko sharas baysaynana yacko ya 1,200 oo qof almost safano hambalyo saaxiib aad baan salaamaya dhamaan waxaanan su'aashii mataan way ready mo tahay aad iyo aad mataano soo daa waayahay fanaanka ugu jeceshahay fanaadka ugu necab tahay waf cumar dhulu uu sheega fanaanka ugu necab tahay way أميت والله يعني متى سؤال عادي والله لكن يو ان شخصي انا نعبي اديدكم من ولبا ورمضان ودي الهي نو ياركيا وليد قف ان نعبي اديدكم من قف اسكو كعي كرنا وصلين كرتان واسكو دحي كرتان لكن ولي دايركت قف ان نعيبه قرن و نعبي قفكا ما غرانيا ما هي سؤال شيء جو سفانو سؤال كلنا هذه لا سؤال iga soo adkay سؤال والله ما يقولي اي متان ودي لسايرتي هذه لسايرتي والله wax plan hadda inkastoo de waa tan lockdown waa covid laakiin heeso cusub oo ciid aan ugu talagalnay subeero wallahi horta waa run horta qorshe adag baan galay imika sanadkan waxaan intaas oo dhan fanka uga maqnaa inuu aamusnaa waxaan sameeyay waxaan ku jiray dadaal oo fankii waad la socotaa in noloshiisa isbedeshay shirkad baan imika aan xiriir la yeeshay si aan xuquuqda rightskayga u helo YouTube channel oo de fankii hadii kale waa de intaas de walaal guriga laga dhisanayaa ma hadii kale moog marka imika waxaan soo jeestay inaan qaybtaas haga horta waxaan aad uga salaamaya halkan saaxiibkay Cabdiraxmaan oo aad iga caawiyay iyo adiga
labadiinaba aad baan idigu mahad celinayaa saaxiibkii cabdiraxmaanna kuley inuu daawanayaan jecelay ku jira cabdiraxmaan mano gob cabdiraxmaan axmed yuusuf oo aad halkaa iga caawiyey oo hadday youtube channel noqoto hadday spotify noqoto hadday noqoto wax walba hawshaas oo dhan gacanta igu qabtay waxaana soo wadaa ciidda ama anaa gariiri ama youtube-ka gariiri de ama anaa gariiri ama youtube-ka gariiri aniguna waan aaminsanahay waa ogtahay big asxaabtinimo marka laga reebo inaan taageero buuxa ku ahay waa ogtahay taa oo fan aan ku ahay saaxiib waxaan rabnaa inaan aad iyo aad u mahad celino safwaan halaac waana ku mahadsantay waqtigaaga walaalo lofty waa ka instagramkiisa originaalka dad badan baa isticmaalo magaciisa xaggaasaa ka helaysa dhammaantiinba hadduu eeba ka dhigo maasha allah safwaan thank you matan wala aad u mahadsanidina heesta iga ciyaar laakiin habraha ma ahay waa hablaha de war ku tagi kari waay odaygu waa weygu jecel yihiin ya walaal aad baan labadiinadii salaamay dhammaan bulshooyintana aad baan salaamay iyo taageerayaashaada iyo kuwaygaba weydinkaa waana mahadsantii walaal qayb sida wanaagsan idiga cusubta subeer thank you very much adaa mahadda iska leh thank you sir what a beautiful human being yeah maasha allah safwaan aad iyo aad ayaan uga mahad celinay sida sharafta iyo qiimaha leh maanta markaan u diray ku walaalo marti baan rabaa inay noqotid diyaar buu soo qoray wallahi wax kale muu soo qorin su'aalaha bay weydiinaysa way jiraan fanaaniin iyo siyaasiyiin iyo allahumma salli ala maxamed wariyaal inamada sportiska ciyaara inuu inta shanta su'aalood aan dadka weydiiyo caadi ahaanta cid kastoo aan weydiiyo 99% waxaan suweero hanagaadina bal noo sii sheeg marka safwan beautiful wallahi xaggan waxaan kale aan arkaa oo aan soo qabanaynaa cabdi hooyo horta waan ku salaamay lady boskeyda waan salaamay cabdiraxmaan maana ku jira cabdiraxmaan maano waan ku deeya cabdiraxmaan maano waa ninka ina baray youtube waxay tahay waa ninka ina baray xidigaha geeska waa ninka ina baray transfer galaxy isaga iyo asxaabtay cali yusuf allahumma salli ala khalid is the playboy the one and only yani waa arooskiisa marka cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto shanta su'aalood aan ku gaado ilaahu iga qabta me cabdiraxmaan maana waa kaas aan isku dayay inaan soo geliyo shanta su'aalood isagana waa inaan ku gaada iyo mideedii kulleed iyo taadii kulleed way gali wareegtay taadii kulleed wariyaa nimcaana wuu ku jiraa saaxiibkay laga yaabo inaanu ready ahayn lakin cabdiraxmaan maano ballan inaan biri soo qabto ballan cabdifatax tacabir waan salaamay kiin jaamac yare nimcaan saaxiibkay nimcaan nuux waan isku dayay nimcaan inaan kusoo qabto way noqon weyday maxaan samaynaa de waxaan isku dayayaa inaan soo qabto suga of course ha sharci kaloon ilownin waa inaad soo qortaan meelaha nagala socotaan calamada soo wala daadiya blue makeup samsam waan isku iisoo qor samsam xaggan waa kusoo qabanayaa ma arko laakiin ma aragtaan ما اسمعش مرادين ما ست مرادين مسقطة يا كروتودا ان صار نيشك نبا habeen kasta waan soo galnaa habeen kasta asxaabta waan isku dayaa waxaan arkay dad badan oo soo qoray especially snapchat kii soo qoray ugu swear walaalo save garee fiidiyoyada save garee oo gadaalan ka daawan marka dadka gadaal hadhow ka daawan doona ku soo dhawaada anigoo ah swear saaxiibkay matan soo qabo yaa soo qabta labadii martii maanta caawa aan ugu talagalnay programka cabdisax tacbir waan isku dayay inaan soo qabtay wuu iga diiday wuu ku jira cabdisax waan salaamay wayo blue makeup samsam life waay soo gashay wari cabdi hooyo waan salaamay ninka shirkadda hooyo ila leh lilbalin noo salaamay soo galay lilbalin ma soo galay hey big fan next السلام عليكم عليكم السلام blue makeup samsam so do Instagram live hey
kusoo dhawow horta number 1 waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma blue makeup baan isticmaalaa mise waxaan isticmaalaa blue makeup fuad baan isticmaalaa mise waxaan isticmaalaa samsung والله هرمر أعود بالحقيقة قال يقول لنا موالن تاعي دقال ما واي سمسم يس كسودو walaalo Instagram live-ka Ramadan Mubarak ayaan ka bilaabnaa رمضان مبارك أبو Ramadan Mubarak waan ka bilaabnaa shanteeda su'aalood ma daawatay wiliga anoo asxaabta ka qaaday ما والله هذا سفارة اللي قصنا يسوي واستيار واي شنت سؤالات wax faniyo asxaabteena waan ka wada qaado abwaaniin fanaaniin suxufiyiin everybody shanta su'aalood marka waa shan su'aalood oo normal afar normal iyo mid aan always aan ku adkeeyo inkastoo matan hadda igala wareegay inta barnaamijka igala jira دقال واي أنت كلا عالم hal magacaago saddexan hadda Samson iyo magaalada baan nagala soo hadlaysaa horta horta fiilan kala soo hadla magacayga waxa waaye Samsam Raage isla quman magac cusub way magaalada Finland reer Finland oo dhan waan salaamay reer aad u Samsam Helsinki waan salaamay kuwa reer Turkona waan salaamay Espor xaafad weeye yes way goorma Samsam noqotay dadka hadda inta gadaalde aan kala socon Instagram-ka ama Facebook-ka والله waxaan dhihi lahaa 2 sano ka hor aan transition-ka bilaabay way maxaa kugu adkaa oo transaction-ka ama dhanka bulshada hadday noqoto ama yourself personally والله waxaas igu adkaa ma jirin horta alxamdulillah kalsoonideedii farxadeeda la ii badatay because markii koow maxaan dhahaa ii sheeg oo aan Somali social media soo galay of course dadku waxay ugu barteen videoyaal oo qosol oo qaraaxa ah oo viral aan ku noqday so maadaama li dhibi jiro nafta li kan dhihi jiro oo nimi anagme nafta ay timid so dhakhtarka markaa la kulmo la hadlo as baranay and li sheegay dhinaca dumarka inaan u badanaha le inta iga maqnad la isku way su'aasha labaadna waxa weeye for how long hadda waa 2 years kan aad 2 years yes 2 years reaction keba kala kulantay ilan markii af Soomaali ba ku hadlaysaa Soomaali waa tahay dadku way ku yaqaanaan reaction-ka Soomaalida kala timid tadiiniyana waan u soo noqonayaa horta wax diiniyan ma ka jawaab because wax kasta oo diiniyan ani ilaahay noo dhaxaysa laakiin ta Soomaali ah يعني عادي يحوغا وحي أغيراد because مادام أدين أقبلها وبطي حوغا وحي نقطة شيكدي إن مفاهمت لي فهمه قف دمر إنا أحي so حوغا شيكدي ويدك ذي عادي أنا oo waxaad degeedankii hayriska ama dadkii way waana run waa ku saxsan tahay diiniyan anu diiniyan personally waa saa sheegtay waa between you and God and totally agree and ta kale aan ku weydiinayna what's your hobby maxaa jeceshay hobbigaaga wallahi hobbigayga horta aad waxaan u jeclahay markii oo especially هذا كرنتيجا وحياة بدنا نحوي تسقف مر جوري سجوا محا يعني وأنا كفكرت عن حاجة عشان هذا حوش على painting I paint a lot I'm like very good painting I'm an artist أنا اسمي صورها تاعك اسمي هي من نلقى بسنة صار yes of course let's go sorry ماشان كرنتيجا نلقي هذا ما يسمى كله كرنتيجا نقول صور كان استصور right I'm very good artist wow وعلى مود أنا photography that's so perfect والله ما شاء الله لكن that's your hobby مركب painting yes that's my hobby مركب يرى إلا like school كير كمان يعني بدنا I was not good in school because أنت معمد هذا الصورات كتير I was that one like قف مركينه وحسك الصورات بس ده بوجا إيطال أو حسوس استحتون شركة إلى هذا الصورات yes سؤال السنة professional كاجا يعني أو شقاد ما أنت محلا 9 to 5 work أما own running own business نو نوجه والله صار تاسنا سمسد thank you هذا هرت ميكو أرت سليكو أجاب and هذا واحد أقول acting I do acting
showyaal badanaa sameeyaa in Finland. So hadda waxaa u gudba dhinaca front of camera. I was behind the camera, makeup artist. Dad badan xiriir badan mogtahay wax kasta waxay kaaga baahan yihiin inaad xiriir iyo dad baratid. Markaad dad baratid aad ku socon kartaa. So hadda waxaan sameeyaa acting. I'm an actor in Finland now. aad ya aad ayaan horta kaaga mahad celinayaa inaad sida daacadnimada nooga jawaabtay su'aalahayga aan hayay. Instagramka originalkuna waa kan meesha korka xaggaas. Ramadan Mubarak nade. Ramadan Mubarak, aad u mahadsan tahay. Adaa mudan. Thank you so much. Instagram. Ya aad iyo aad waxay u mahad celinayaan Samsam. Sida dadka aniga yaqaano hore yaqaanan waan arkay commentadina. And I never judge, and never will, and never done in my whole life. Luqa lagu soo galay naga soo kansanay saaxiibkii matar nagu salaam mataro Instagram live ka soo gala ku dhe. All right, and ya isoo qabo Cabdiraxmaan Maano isma dhibay. Cabdiraxmaan waan soo qabtaa. Cabdiraxmaan Maano waa inaan soo qabtaa lil balil oo ku salaamay saaxiib legendkeygii ilaa hadda waxa lagu soo ceeshanayaa lil balil wareysigaagii 5 su'aalood shalay ayaa dadkoo dhan luuqayso qoray hambalyo saaxiib hambalyo waxaan soo qabanayaa oo kale Abd Fatah I am Hamdu wan salaamay way diplomat baxaga ku jira ay ku yaca Abd Fatah Abdi hooyo saaxiib ku soo Instagram ku soo dhawow دوا سؤاشا ugu horeysa cabdi wana dadkan abara dadka aan inta 99% ku jirto sana waa ninka shirkadda hooyo aasaasidii markii soo qabtay 2016 ee yiri bil February gurigiisan joogay meesha maxay Groningen maxay war xaafadda magaceed maxay ahayd Groningen markaas wuxuu yiri wariyaad kale business iyo ganacsi weyn wala sameysanahay markaas kala shaqeyso markaas oo maxaan sameynaa markaas uu yiri 60% waa hooyo soo korsatay single mother and let's do it sahib since then alhamdulillah dhamaan inta partner kayaga inta modelada inta naga caawisay inta dukaanada dharka iibsatay la'aantiin maanu noqon lahayn the biggest Somali clothing line idinka ma hadda iska leh Abd Fatah anigu waa shanteedii su'aalood. welcome kiin jaamac yare oo ku salaamay xabiibtii waan ku salaamay kiin isdiyaari adigu sniinda kuugu talagalay siyaara meel ay dhibaaxaysa ma jirto intaan su'aalaha ka jawaabin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan dhaho Ramadan Kareem intaan ismaqlin dadkaan is arkin ani social media oo ogtiin si fiican uma soo galo laakiin intaan waxaan dhihi lahaa Ramadan Kareem bil khayr qabta Allah nooga dhigo wax fiican Allah na waafajiyo coronavirus kan Allah naga qaado saan u shaqaysan amiin ninkan waa ninkan waxa lagu soo qoray durbaba ma single ba no dumashada way daawanaysaa hey kala hada Abd Fatah waxaan rabay inaan xagan aan shantii su'aalood degdega yes brand new website baa soo socda goorma ayaa dadka u soo bandhigi doonaa insha Allah adiga waa almost ready wax kasta process baa qaato ma sha Allah laakiin anaga corona waa ka faa'iideysanay shaqadii bangaroodka ma sameeynoona website-ka waan diyaarinoona maadaama waxyaalo badan ay Soomaalidu kala kulmeen oo payment-ka dhibaato naga qabtay wadamo badan ay Soomaalidu joogaan hadda marka website-ka dhan af Ingiriis baa laga wada dhigay iyo Swedish dadkeena Swedish u badan yihiin maadaama beesada xagee taalaadeen wala ila socodbe af Swedish baa laga dhigay adiga marka almost ready waa insha Allah before Eid yeelan u fududeynay payment-ka oo jiray payment-ka Soomaalidu waxaan ahaydna waxaan ku darnay wax la hayo Klarna dadka oo iska dreyfiska si fiican u isticmaalaan Klarna ku darnay yes you bezani fanaankeega qaaliga reer Kenya waa ku salaam saaxiib adna iyo diyaar garow oo soo qabanay waan ku arkay su'aasha labaad maxaynu dhar haynaa waxaynu haynaa kids oo ciyaalka yaryar marka anaka all item waa haynaa haddaan shirkad ahaan dhahno shirkadana looma sameynin inaan adiga wax kasta aan soo qabano laakiin waa most important dadka oo soo koraya anaka camal oo siiba si wallaahida
inay bartaan waxay ka dhigan tahay hooyo صح xuduudda hooyo waa wada ognahay laakiin inay magaca maqlaan ay bartaan marka kids iyo oldskan waa haynaa aabaha iyo wiilkiisa oo isla bisan karo hooyadii iyo gabadheeda oo isla bisan karto marka from the baby till maxaa lahaa ninka 30 jirka wax kasta oo haynaa anaga daahir qurayshna xaggan aanu ka salaamnay the one and only daahir quraysh hobbigaaga cabdifataaxo maxaa jeceshay aniga intaan aan jabin I was football player baa ahaa jiray ha laakiin taariikhda waa lahayaa inta kooxdana u dheeli jiray aniga waxaan la dheelay Arjen Robben koox ahayn magaalada uu la degan yahay dadka yaqaan Bayern Munich oo lambar 10 ku ahay iyo lambar 10 ka wadankan adiga ay markaan ahay 21 anoo galay baa lugta laga jabay 6 jeer baa lugta laga qalay markaasaan ka niyad jabay after dad banooni daba ma taaban waan daawadaa le hadda guriga waan ka atrin team kabana taageerta the one and only Viva Barcelona Viva Catalonia waa nago Barcelona kelima mala meeshan xaggan waxaa ku jira Saquni reer Edmonton ninka designka noo sameeya fiidiyoyada aad ka daawataan Instagram-ka iyo fiidiyo isku xidhan Saquni waan ku salaanay qortooyo dad badan baa jira Swerow oo waxay u maleeyaan inay shirkadda Sweri Caftax leh ku dhisan tahay waa not true abti annaka energy waxaan ka helnaa ummadda Soomaaliyeed oo qof walbaan garab uga baahanahay ama ha noqoto website si loo dhigo ama fiidiyo wiilka noo sameeyo ama fanaaniinta dharka gashto always qoftaan dhahno wax ma noo sameey kartaa abti qacmo furan ee ugu soo dhaweeyaan energy-ga Soomaalidan annakan ku dhisana maanta wax kale ma ah I agree يعني يقل أنتم ما يصعدون أنا waan shaqeynaa laakiin Somali people waxaan haynana waa hooyadee marka ma loo baahan in experience lagu sameeyo we can't fail that we can't xaga ku dhalatay magaaladee baa ku dhalatay xaafadee baa ku dhalatay Muqdisho aan ku dhashay anigoo laba jir aan Muqdisho laga soo waday 3 jir baa inta ku imaaday Djibouti baan soo marnay meesha laha iyo Italy aabahay baa Italian ahay passport Italian haystay waa soo goodnay Holland markaas imaanay 93 marka ilaa Holland qoroniga ilaa qoron magaaladeen wali degana anigi afar wiil baa la dhalatay anigu af Soomaaliga suu kugu ahaa bilowgii af Soomaaliga waa waxa oo Soomaali xgalka san aniga always waan jeclahay dadkayga Soomaalida and I'm proud in I Somali as well in I Hollandaise I'm proud in Hollandaise the Chinese keena siin anigi family keena anako yaro soo galnay wax barasho ka baranay hooyaday caawiyeen hooyaday afar wiil bay soo korisay aniga lagu daray 5 wiil was hard life laakiin aad bay Hollandaise ka noo caawiyeen I'm proud in Hollandaise ahay laakiin always Soomaalida markaan xoogaa soo weynaaday waa isweydiinaysaa moogta adeeg su'aal isweydiisa xataa yaan ahaa anigu yaan ka dhashay halkeen ka imaaday marka hooyadayna iskoolka xamar Soomaali waxay ka ahayd macallimad ayada Soomaali guriga nagu bari jirtay iyo Quraanka marka anaka joognay aan yareen dadka macallimiinta intaan muu joogin af Soomaaligana waa adkaay marka ayada Soomaaliga nagu dadaali jirtay sidaas waxaan aaminsanahay oo ciyaalka lagu dadaalo af Soomaaliga in la baro marka dadka wax la qaybsan karaan waan kugu raacsanay taas yani background anku markaan Sweden nimi Burco to Dubai Poland ilaa iyo Sweden way adkeed yani af Soomaaliga way dadka mataan anigu dadka quriyaan haystay anigu oo jiiraan xaafadayada isaguna wuxuu ahaa 4 jir 5 jir ana 6 jir 7 jir baan af Soomaaliga wallahi billahi labadeedun baa isku tababaran jirnay iyo walaalaheen cid kale baan jirinba marka laakiin waan kugu raacsanahay kunka qof ku jirana we agree yani waan agree garanaya in dad badan oo kulleeba way nagu raacsayeen in waa muhiim in ciyaalkeena maanta aynu barno waxaan aragnaa mataqaana Swerow dadka inay Soomaalida ka faanaan markaas waa lahaa Soomaalida saan waaye laakiin markaas waxay ogaataa annaga qofna jecel male annaga hadaan jeclaanin af Soomaaligan waa meesha ka bilowday muhiimadda hadda markaan aan tagnay wali aan kaaga mahad celinayo dhulkii hooyo Somaliland aan tagnay dadka noo jecel yihiin dhahayaan nagu soo dhaweynayaan af Soomaaliga hadaan aqoonin qofna jecel male meeshaana waan imaanay waan ka faa'iideysanay ummadda Soomaaliyeed waxa inay ka faa'iideystaan sidaan dhulkeena anaka dadku u faa'iideyno exactly
وكل عسنا وانا هذا الحكمة اللي بقوله هذا الشيء يعني نقولت لله عيال كين يعني رومن af Soomaaliga ayaa laga faan Soomaalinimada number one meesha kale ma aday Soomaalinimada ayaa laga faan exactly I agree and madam anigu su'aali hadda ninkan uu igala wareegay adag isaga dadku wata big bro وكسلام اوكي ونحرس هذيك الوضع دغال هدو اوكي كوخه تاغرتا wuu sheegay Barcelona Barca ay qoronigan abto فرصه تاغرتا maxaa uga jeedaa لكن ya su'aal adag buu ku weydiiyay Abditax waxa waaye in qof meel oo ka yimid moogta yes dadkan inay asbartaan way fiican tahay anigu dhigleyba cideed wax dhigleyba ka imaadeen big shout out heer dhigley waana meeshan ku faano warta dhiga abte gudoomiye warta nabadda warniglan way nagu jirtaa waa way nagu jirtaa seena walaashay waan big jecelnahay barashadana bartay meesha waa ka imaada anigu abte su'aashii mataan laakiin kama jiro afartan maxaa looga jeedaa bal soo qoray intii fahantay عبد الفتاح وان عاد يا اب walaalo aan kaaga mahad celinay adiga mahadsanneeyo markastan isku xirka Soomaalida waa haysaa ilaa hadda waxaan aan fahmi laahay in lagu doori la waayay wasiirka isku xiridda Soomaalida dhalinyarada Yurub baa sheegtay adduunka lagu doorto waa swear campaign-kaasna waa bilaaweynaa nin qalbi fiican baa tahay nin walaalkay baa tahay aniga private baa isku naqaanaa marka laakiin ummadda Soomaalida inay ogaato waa markasto swear abti salute mugo sharafay mugo bam كل يلا صاحب عبد الفتاح most humble guy عن برتو يعني ما فاني مدام business partner كي لكن هو والهالكي رومات يعني وقف عاديات قالي وقف ساسو كلمه وقفتي حرمره ولا جاري كرتانو same success at ولا سمين كرتان سميرة حسين أحمد أي حاجة صوقرتي واصحري wuxuu Cabdi Fataax uga jeedo bakhrasa ugu dadka kor wala akhri mursade big up to family go no reer mursade no big up hey after قبل for life and way and CK ku jira saaxiibkay CK waan soo qaban lahaa next aan isku dayno dahayay soo koonte لكن عفتح سيدي فيشن شيبس مي انا كوكل هرت ها saddex jir afar jir buu ku yimid way waxaan isleeyahay waxaanu soo qabanaa saaxiibkay daahir quraysh waa inaynu daahir quraysh وكاغا زوين صاحب سيتاي كسو دو انستغرام لايف كسو دو صاحب ثانك يو markaan arko waxaan igama baxsanaysid qofkii aan arko soo galay igama baxsan matana waa kan sidekickeyga the one and only واك السلام واك متان daahiro naga dabagee xaaladaada xaggaad joogtaa Ramadaan mubaarak horta رمضان مبارك دمان أصحابتنا داونيس لايف كزبير داونيس وحنا الله رمضان مبارك دمان تيمبا أنا وحن شو قاعد دمك أودنس غير دمارك اودنس اوكي وي أودنس أوكي شن تيجي سؤال دي ظاهر قريش أوكي ديار موتا صاحب ديار وي قريقان وصل من قريقان وكتير لوير كي لوير هذا وي سؤال نمبر 1 وحويه حالتها عافيمادكاغا فاميليغي ايغا ورن والله الحمد لله حالتي عافيماد فاميليغا everyone الحمد لله وفي عنا كلنا سيف الحمد لله ما شاء الله سؤال لبعض ان ربينا ان حمر مو وحيست horta taasoo هي ما حاول حيستay حمر waxaan u xiisay inta joogtay Yurub حبت 3 years way soda حبتي liido baashaalkii xamar dadweynaha maalin walba aan tusin jiray nolosha xamar baashaalkeedii live-ka yaalla xamar nolosha dhabta ee taallo ee xamar ee qurbaha ka wanaagsan taas waa u xiiso horta kow way faa'iisana waanu salaamnay faa'iisa wadani waan salaamnay ta kale aan ku weydiinayay Yurub ma saafilaysaba Yurub weligay waxaan inta aan joogay Muqdisho weligay waxaan dhihi jiray Yurub laga soo tago
weligay kumaana fikirin inaan Yurub imaado ama aan ku noolaado runtii way laakiin sabab jira awgeed inaan u imid adiga wala socotaa oo gabadh yareed roodo aan caawinayo darteed نعم inaan u soo baxay oo noloshaydii iyo shaqadeydii everything waa tagtay beach view سفيان kaagala sheekeynayo تاسن تا waxaan rabaa inaan la qaybsado in kun iyo boqol kan qof ee ku jira daahir quraysh noloshu uu ku jiray uu ku noolaa oo uu ku sugnaa iyo khaafnimadiisa sheefka meeshu ka ah iyo maamulka ana indhahayga ku soo arkay waxa soo dhan noqotay ilaahay ajar ka siiyo inanta rooda ilaa iyo haddo sharci qaadatay ilaa iyo maalintii xeebta liida aa kula kulantay dhabar tafta u xidhatay ilaahay ajar ka siiyo waa bil rabadaan walaalo dadka snapchat-ka nagala socday aniga iyo daahir iyo kulliba waa la socoteen xaaladii rooda house rooda caawa say tahay wallahi roodo way fiican tahay alxamdulillah weli Italia joogtaa xaaladeeda seef waaye maalin walba waxaan ka sheekaysanaa WhatsApp-ka xaaladeedana ma sha Allah way fiican tahay sidii horena way ka fiican tahay runtii koronaha ka jiro Italia iyo dhibaatada ka jirto Italia way ka fiican tahay she's safe alxamdulillah aabaheedna interview waa laga qaaday haduu ilaahay insha Allah markii uu corona laga baxo waxaan rajeenaa in aabaheed loo keeno haduu ilaahay insha Allah ma sha Allah ilaahay ajar ka siiyo ilaahay ajar ka siiyo xaalad tough ban soo marnay wallahi inanta markaynu Europe aynu waxaan xasuustaa baasaboorradii laynagu adkeeyey waxaan xasuustaa fiisihiina lagu arkay xamar waxaan xasuustaa dhakhtarkii digfar shan jeer aynu noqnoqonay Turkiya tii Ankara dhakhtarka sheeka la qaybsanaya dadka waxaan xasuustaa daahir quraysh markuu igala soo hadlay Ankara ayaa wuxuu yidhi subeer walaal waa inaad dad taageero waa inaad haysataa Ankaro inanta jirka cream loo mariya anna nin baan ma geli karo cawradeeda masha Allah weligay taa ma ilaawayo aan intaan snapchat-ka aan galay aan ku yidhi tolay meeya taageerahaygii reer Ankara waxaana hilmaamin habeenkii aan waagii aan imid Italy oo aan internet la'aanta ahay kala soo hadlay markaas xaaladaha soo marnay wallahi markaas horta xaga waxaan aad ugu mahad celinayaa hablihii dhamaantood oo Ankara snapchat-ka markaan ka qayliyay aan yiri dhakhtar hebel taga walaalkay daahir inanta qolku ma tagi karo creamka waa inay hablo u mariyaan dhamaanta hablaha soo wala hadlay ee u tagay inanta jirkeedii cream u marinayay ilaahay jannada idinkana inoogu bashaareeyo mid kalena waan xasuustaa oo waxay ahayd daahir quraysh Dubai baan joogay meel badda agteeda aniga inama asxaabiya hablaan la socday shishad baan amrinayo ma sha Allah naga may qasneenba markaas daahir baa igala soo hadlay Instagram-ka waa filaya Instagram-ka la soo hadlay qoraalkan uu ku jiray ilaa Instagram Talyaaniga joogna week kama warhayn markaa iyaga markaasuu yiri internet markaasaan yiri tolaayo waana 12 habeenimo koodii abtide maanan dhigin grape iyo mint-kii aan cabayo aan qaylin haddana tolaayo baan yaa talyaaniga igala socda markaas talyaaniga oo dhan baa soo hadlay markaas daahir ku celiyo ku war daahirow dhakhtarkiiyo kaamka liinigii magacii markaasuu ii soo qoray markaas haddana ku noqday war yaa magaalada igala socda markaasay dadkii soo qoran markaas dad baa waxay soo qori jireen suweero dadka magaaladan iyo dadkan ay raadinaysaa waa maxay markaasaan anna qisadii oo dhan maan wala maan sheegi kareeno waxay ahayd in yarna waan yara qarinayay dhag markaasaan markii dambe aan ku yidhi internet un baan u baahanahay iyo 2 sim kaada dee tuuladii uu joogay meeshii ay joogeen Soomaalitiya leekeena wallahi thank you hadday dadkaasina haddayna daawanayaan waxaan rabaa inaan idin wallahi dhamaantood because social media waxaan ku qabanay wallahi wax yar ma aha runtii dad badan baa ku caawinay social media siba Snapchat-ka wallahi kaaga mahad celinaya taageeraha yani aad noo samaysay runtii iyo shacbiyada noo yeeshay hol badan noo qabatay wallahi brother thank you very much kaaga mahad celinaya taa سنت ولا واجب والله وايد inantaasi ilaahay ka soo kow waa ummadda Soomaalida oo adigu ugu horreysay oo garab siiyay anigu mar kasta aan ku fakaro rooda waxaan ku fakaraa sawirkii kow ay soo dirtay oo tiri subeero inantan ila caawi iyo kii hadda markii ay sharciga qaadatay yani ku soo diray hadda this is marka ummadda Soomaalida beriga garabna siisay ilaahay ajarayniga wala siiyo way wanuga hina taageero footballka aad tahay adigu wata صح oo kubadda aad jeceshay team kebaadna taageertaa teamkaaga Barcelona
ninkani waa Chelsea fans ilaa hadda Instagram لكن Chelsea the only team وبرشلونة كأكتر وتشيلسي أصلاً أوجي the only team نقاد هو Chelsea بس قاعد يقولنا shakadii baska way dhacdaa way yo tii ugu dambeysay oo aan rabay inaan ku soo gabagabeeyana future-ka hadda maxaa rabtaa inaad samaysid ma shaqo fasax inaad ku noqotid wadankii إن شاء الله waxaan rajaynayaa insha Allah inaan horta wadankii ku laabto hadduu ila ilaado insha Allah inkastoo walow aan family aan inta ku yeeshay insha Allah waan rajaynayaa inaan dib ugu laabto dubaashida waan wala salaanay ماشي كقصة ماشي سيد هذا كان ماشي كقصة هو respect هاتكور ها respect مقابلنا وجهنا يا brother ايوه marka insha Allah waan rajaynayaa inaan dib u laabto duulaa hadda waxaan ku tala jiray inaan samarkaan laabto laakiin corona ay xayiro Soomaa صح ما waxaan rabay inaan dhaho muqdisho ka shidan tahay والله سناب شات كاغي والله بالله يو مقدش عدي waxaan rabaa intiiba inaad ku wala darsataan daahir quraash isagana account fake laga sameeyay waa ka kiisi korka originalka daahir aad baanu kaaga mahad celinay adigii mataan waadi salaamaya brother love thank you salute you صاحب we salute you thank you brother ظاهر وان شاء الله ظاهر ومبحوب محل هذا مبحوب ضدك قلبي صافي مقالة أدوك وجعله وجوه أودنسة وحن كهلي محاضري بري كهر حتى كورك قرص ما شاء الله ان وحن روا إن سوق قبته ان وحقنا أكو أركي مصطفى كرامة the musician أنا بابي وحنا أدو مرتا واركها فكرام مارك لكن ما عارف مالها أبدين وحنا واخد دمانتين بقى أنت سنكو حلنا عاو ما تسنكو أنقارب ونسبة له بس وحنا واخد تينا عادي ينيم هذا عليه دمانتين تكو جرتي ووقت إن لقى هذا عادي وحنا ما هذا علينا دمانتين تمرتي شرف تعاو كسوق قيم كشيء سيدا دا عدا وسؤالين دمنيga su'aalihi iyaga dhamna wala jawaab taas waa kalsooni anigana ay qabaan iyaguna naftoodu qabaan de waana san idin sheegnay every night waxaanu isku dayanaa inaanu soo galno labadeedu sax aniga mata sharciyadana waa taqaanaan waxa weeye qof mugdi soo gala waa ku tufaanigna qof wadan kala joogo oo nala arag hey ay kala soo qabanaa iyo ducadi إلهو ما شرتنا قدك إله هو المحضنا نقصيني آمين شلا قبيل بدرنا we love you guys إنت صايرين قبحناي هذين وناكسن مالين وناكسن ملك سرتشوكتان be safe إلهي بوح بدبادية إسبت بادية إسلالية كورونا فيروس يو كوفيد-19 was serious بليز رمضان كنا وقتها صومة بليز صومة نعم أنا كومبيتيشن ماشي اللي ما واصلنا وانا سفيرنا قف جكدو كفكنا يوحب لكن we look after each other exactly انت ذا نواكر سنة صونت يا صلاة بالإسرائيلية لو أصبح كوفيد بلود بو إلهي فرصة إنسي إنه نتوبت كانوا لكن الليس بيشاز إلهي نقول مدوي دنبياش إنه رمبا كيريا كوينبا مركوت وما سنتين إسلالينا كوفيد-19 و serious أنا قلت صباح هانتا إذا مركان لندن شوي وحلا بلوها مركان إثيوبيا كي وان في العادس أنا serious ما قادم وحنسلا no that's bullshit عطانكم بعدنا العقد دوين قسمينه لكن مركان أركيد مقالة دي تبوري تود كل متان مركان أركي عاصمة دي ستوكهولم ووحي كلوز بيكونوا غنصا markii la yiri Silaaliya of course hooyo waynaan ilaalna aabbo waynaan ilaalna marka waa be safe guys dhalinyaradana waxaan u sheegayaa hadda xasuusataan wanigii walaalkay doctorkan wareysanayay shantii su'aal wareysanayay yes dhalinyaradana way ku dhacdaa so Silaaliya waalidkana ka fogaada dadka waaweyn oo dhan oo ka fogaada waa iyagu waa risk zone Soomaalida Mareykanka joogta iyo Soomaalida joogta Talyaaniga iyo Soomaalida joogta UK hadda 30,000 bay maraysaa be careful guys idinkan aad iyo aad inugu fakara waa dad goba degan meelahaas oo si boqortooyo igu soo dhaweeyay marka waan inugu fakara be safe waanooyo habeen dambe hadduu ilaahay naftana daayo we love you guys habraha bid quraan anigu ka habraha